shirkii khamiisle ee golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo shir gudoomiyay ku sameeyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wasiirka amniga mudane Xasan Xuseen Maxamed Eele iyo waliba inta badan lagu ka hadalay qodobo badan oo ku mid ayeen arrimo ammaanka maamulka koonfur galbeed iyo biirada ku jarta deegaanada koonfur galbeed markii kulanka hay'adda waliba warfidiyeenka la hadlay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed mudane Xasan Cabdi Maxamed oo faahfaahin ku sii qodobada lagu ka hadlay maanta oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 29 bisha 3aad 2018 sidii caadada bayna oo ahayd waxa shir isugu yimid golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya shirkii khamiisla ahaa waxaana shirkaas shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ahna wasiirka amniga mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Elay waxyaabaha maanta la isku soo qaaday shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa kamid ah arrimaha amniga iyo arrimaha horumarinta gobolada koonfur galbeed Soomaaliya iyo arrimaha dabcan kulaylka iyo hunfiga ka jira xilli roobaadkan roobkii oo aan diin iyo culeysyada biyo la'aanta ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo guud ahaan in tacsi guud loo diro golaha wasiiradu ay tacsi guud u diraan iyadoo horey dowladda koonfur galbeed Soomaaliya u tacsiyeysay Allahu naxariistay xildhibaanadii Ruqiya oo lagu dilay magaalada Muqdisho Ilaahay inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo haddaan ku hormarno arrimaha amniga guud ahaanba gobolada koonfur galbeed Soomaaliya 24 saac oo la soo dhaafay wax dhibaato ah oo laga soo sheegay malaha guud ahaanba degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed Soomaaliya intuba amnigoodu waa wanaagsanaa 24 saac oo la soo dhaafay wax dhibaato ah oo laga soo tilmaamay malaha iyadoo aan ognahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya kuwa Amisomba deegaanada ay ku sugan yihiin inay shaqooyin muhiim ah ay ka wadaan amnigana inta la ogyahay uu aad u wanaagsan yahay gaar ahaan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay fariisankana waa dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ay tahay magaalo boqolkiiba boqol amnigeeda la isku haleyn karo laguna amaari karo ciidamada ammaanka kuwa booliiska nabad sugidda iyo daraawiishtuba in ay amni fiican ay ka sameeyaan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay sidoo kalena lagu amaanay shaqada wanaagsan ee ay wadaan ciidamada kala duwan ee Soomaaliyeed iyo sida ay ula dagaalamayaan nimankan gumaadka ummadda Soomaaliyeed al-shabaab iyagoo duulaan ku qaada meelaha ay joogaan uguna taga saad ogtihiinba toddobaadkii la soo dhaafay ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya iyo kuwa qaranka Soomaaliyeedba waxay weerar ku qaadeen meel ay shabaab fariisan u ahayd oo u dhaxaysa degmada Buurxakaba iyo degmada Baydhabo oo wadada laamiga xoogaa u jirta iyadoo halkaasna hubna looga soo furtay shabaab dadna looga soo dilay iyadoo loo soo bandhigay waxyaabihii hubka ah ee laga soo furtay iyo shabaabkii la dilay intaba saxaafadda ay u soo bandhigtay dowladda koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxay tacsi u dirayaan tiraanyada guud ahaan xildhibaanada reer koonfur galbeed Soomaaliya iyo shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya intaba geeridii ku timid walaasheen xildhibaanad Ruqiya oo gacan ka xaq daran ay ku dishay magaalada Muqdisho xarunta ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto kitaabkeedana midigta Allah ka siiyo qabrigana Allah u waasiyo jannatul firdawsana Allah geeyo qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii ay ka geeriyootayna guud ahaan iyo ummadda Soomaaliyeed ba sabir iyo iimaan Ilaahay inuu ka siiyo waxaan rajaynaynaa in maamulka gobolka Banaadir ay cidii xildhibaanadaas haweenka u geystay dilka inay soo qaban doonaan sharcigana biidnillaahi ta'ala la waafajin doono haday maanta dunida ku dhoontaana maalin aan cid waliba dhuuman karin wixii ay geysatana la xisaabin doono ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo bandhigi doona cidii u geysatay dilka xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale waxaan u tacsiyeynaynaa golihii baarlamaanka ee ka tirsaneed xildhibaanadu iyo gudoonkoodaba guud ahaanba sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxyaabaha ay isla soo qaadeen waxa kamid ah guud ahaan in la horumariyo horumarinta gobolada koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo dabcan aan ognahay abaarihii ka jiray deegaanadan iyo Soomaaliya oo dhanba inay dhibaatooyin badan ay geysteen iyagoo sababay in barakacyo fara badan ay yimaadaan magaalooyinka waaweyn ee koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo aan ognahay in sanooyinkii la soo dhaafaba roobabku dalku ay aad ugu yaraayeen waxa kale ka codsadeen shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya waxa lagu jiraa xilligii kulaylaha ama bishii Maars oo aad u kulayd inay kaalmeeyaan dadyowga walaalahooda oo deegaanadoodii ka soo barakacay qaar abaaruhu ay soo barakaciyeen iyo qaar ay soo barakaciyeen nimankii gumaadka ummadda Soomaaliyeed al-shabaab inay gacan weyn
ka geystaan sidii dadkaas loo caawin lahaa marka ilaahay uu nimcadiisa keenana loo gacan qaban lahaa iyagoo u baahan haday tahay bacyo iyo haday tahay hoy iyo gabaad iyo raashin intaba in haddaba dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay maanka ku sii hayaan sidii ay u garab istaagi lahaayeen dadkaas dawladuna ay doorkeeda muhiimka ugu qaadan lahayd qodobadaas iyo kuwa kale oo muhiim ah ayaa maanta lagu soo qaaday shirka golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya aad u mahadsantiin Maryam Malabshir warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo